markaasayti hadeeri hoolka markoo dhown way bilaawda doonee doorashada kursiga ku horeey oo koob boqol iyo saddex yalla doorada ergada way baa hoolka ku sugan boqol iyo koow erga oo markaas diyaaranga inuu doorado lamada musharax oo markaasayti inteega boqol iyo koow ergadii weelan sharaaya habkiyo etchoyon dhiibida koran oo markaasayti iyo markaas aan coday koran lamada musharax kiyo fadayaan oo intii kursiga lambarshi iyo boqol iyo saddex hatta wayba markaasayti wareysada doonay qaar ku tirsan guddiga siba wayba wareysay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed gudoomiyaha ka dhawaaw telefishinka koonfur galbeed Soomaaliya runtii waa dhownahay maanta waa maalin kale shaqo dabcan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed koonfur galbeed wuxuu wataa howlihiisa maalinlaha shaqada ah ee ku aadan doorashooyinka maanta waxa inoo qabsoomi doonaa 4 kursi oo kamid ah 11 kursi ee aan soo shaacinay 4 kursi waxay kala yihiin kursi nambarka oo tiradiisu sumadiisu yahay 103 41 42 iyo 189 kuraastaas oo ka dhici doonta doorashadooda qayb ahaan ay tahay kuraasta magaalada Baydhabo waxayna ka dhici doontaa howlka baarlamaanka oo xarunta koowaad ee doorashada iyo xarunta ka soo horjeedo midda labaad ah runtii doorashada si nidaam ah u socota hadda waxaan doorashadiisu ay taagan tahay oo bilaabatay kursi sumadiisu ay tahay 103 oo ay musharaxiintii xitaa soo xaadireen ergadiina ay dhameystiran tahay oo haddana inoo bilaabanaysa insha Allah daqiiqadaha hadda inoo soo aadan shalay doorashada bilaawatay 3 kursi guddiga in suurta galeenay oo badan geekana 4 kursi qorsheyn markuu rajada la kuleeyameed in 4taas kursi iyo sidii la fadayaan runtii waxa waay shalay 3 kursi ahayd maalinta koowaad ahayd maanta waa maalintii labaad waxyaabihii shalay ولسيدي جري ما أنت مسي جرايان عاصي إن ما أنت كرسي لك حدي ترتق نق إن شاء الله وأرسي وإني كذتان برجنا أفسين إن شاء الله هذه ثام حسعود سنة لك إنه ما ترجعني هذه لا قدومي كرسيهم كوري أو هو بقول إيو سدة شلي قديك فدرال ك وراها كساري قديك استيت كنا وراها كساري إسلا دور الشيء ويقوى بداية ما يأنو قديك فدرال كفيد حكت جديين مركب ما يلقوا فيلا ذكر كرسيهم أو فيدنا دي سيدنا قبلي runtii waxa waaye annaga waxaan leenahay shuruuc iyo habraacyo u degsan doorashada oo lagu soo wada heshiiyey wixii shalayna gudoomiyaha guddiga ayaa ka hadlay oo war-saxaafadeed ka qabtay runtii wuxuuna cadeeyay sharciyada iyo sida loo kala leeyahay anna haddaan sii taakiidiyey waxaa jirto guddi loogu talagalay oo la yidhaahdo guddiga xalinta khilaafaadka qofkii cabasho qaba ama wax qabanaya waa inuu la xiriiraa habraac la raacaa jirta runtii waxaan rajaynaynaa habraacyadaas dadka inay fahmaan shuruucda u degsan guddiyada iyo siday shaqada u kala leeyihiin qof walba uu fahamsan yahay guddiyadana say u kala leeyihiin naftirkooda ay fahamsan yihiin marka qof walba shaqadiisa in lagu ixtiraamaan rajaynaynaa ما سنت قدومي إذا ما سنت كاسوها قدومي كحجانك قديك دورشوينك هير دولة قبلت كونفور قلب السومالي مركضون وين بلاو ضدونه قضينت أو لن قضيها لما ضم الشرع كذا كذا وانا بقول لك ما يخرج غلطه ما اخذت يعني
Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وإذن سلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشحين تا إرجدا جودي دورشوين كا كرجوكتا دمان وحن إذن شيء يا مانتا تاريخ لو أي تهاي لبعتني سديد بيشا نوفمبر لبكون لبعتني يكو waxaa inoo socota doorashadii guud ee golaha shacabka oo ka dhaceysay magaalada Baydhabo kuraas badan oo 4 kursi ayaan soo saari doonaa maanta doorashadooda ay ka dhici doontaa magaalada Baydhabo saakay waxaa inoo horeen doona kursiga noogu horeeya oo noqon doona kursiga sumadiisu ay tahay 103 HOB 103 waxaana ku tartamaya laba murashax oo kala ah Maxamed Cali Xasan iyo sidoo kale Mukhtaar Cali Ibrahim tirada guud ee joogta ergada waa 100 qofood hal qofooda ka maqan kooramkan uu noo furan yahay doorashaduna way noo bilaabatay kursigan doorashadiisana howlkan baarlamaanka oo xarunta koowaad ay ka socotaa wayna noo bilaabanaysaa aad u mahadsantiin dhamaantiinba waxaan idinka codsanayaa dhamaan in habraacyada habdhowrayaasha lala shaqeeyo qof kasta oo security kamida socodka inay yareeyaan ergada buuqa iyo inay iska joojiyaan si nidaamana ay noogu socoto aad u mahadsantihiin dhamaantiin